gudcurdaha soo rogay بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمانتي بسو دواده Adial from Ainabo, thank you so much. Out by this Salamia. Like a ganser rayo. وأنا السلام يا دمان تيمبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحمدكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد سلام جنتلمان إن بالك وحيقول هاي سوق وصاحب ونسكت أي تريتو إن كوكان لكن ولا سدا كلام لا كوبيا لا يقرأ عليها مربى نصي توصل هذا دونا كده بنوع فانسين دونا قابك أنا سوبر برفرسان كرنو ما استعمال رنتي وحو wanaagsan walaal qaabkan dhalinyarada kale isticmaashaan uma isticmaalo intaas oo adigana ha ku deeqdo waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa 30 qodob oo aan ku soo diyaariyay xukuumadda nabad iyo nolol intii ay jirtay ay ku guuleystay waa muddada yar sanadkan horta inta aanan Facebook maxaa ku dhacay walaal dadka qaar halka ay leeyihiin Facebook-gii haddaan kaaga warramo dawada arkaysaa walaal imika kanaan samaystay bal Soomaaliyeey waxa la yiraahdaa Soomaalidu wax kuma maada nin reer guweyn وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته iyo gabadh umulisay midna siday u xoog tahay waxba uma sheegto waxa la yaabantiin Soomaalida waliba gaar ahaan kuwan koonfurtan la hadlaya balcaaw in yar baan halka u marnay waxa la yaabantiin kooxaha jawaasiista ee dawladnimada ka soo horjeeda ee nabad iyo nolol ka soo horjeeda ee madaxweyne farmaajo iyo khayr ka soo horjeeda balka waran ninka ay ka soo horjeedaan dhasha xabashaduna oo ay soo baasteen maxaad u malaynaysaa wuxuu bal adraa bal ninka uu tahay dani iyo xaaj soo degay saadash kugu daray isnatiisa daymood Facebook-ga walaal Francisco wan jooga waxba iguma sameyn karaan laakiin se waxay soo kay baastay dhasha xabashida oo ah kuwa taageera waxaan aad sheeganlaan oo aanu sayno runta fiican oo la soo diray waaniga maamahda idin sheegayba maamahda walaalayaal haddaan idin sheegay waxa weeyaan nin reer ugu weyn oo curadkan mala garan karaysan iyo gabadha oo mulisada midna sidii wuxuu ogtay waxba uma sheegto waa haddaan imika idin sheegay ma fahmi karaysaan nin halkan ka hadloon baadi haystaan oo live-kan ka qayriyo war si kasta wala lagu deeyay ha karaama seegin habar lagu kari waa caaqilana loo soo diray lacag baan loo maalaacna oo haystaa markaan ku leenahay war waxan iyo bukaan socodka dhalinyar baa la soo diray jawaasiis yar oo fara badan baa la soo diray waxa la soo diray
caaqila la soo diray dhaqaala la isku ku bixiya wallahi inaanay waa siiro nimankaas halka aan ka hadlayo xitaa waxa la ila gaadhay ma jecli horta qodobadan aan jeclaa laakiin dadka ay guraan maxaa kugu dhacay in qaar ay yiraahdaan xitaa wax aanan garanayno mala sixir ku saabsan anigu ilaahay baan aqaanaa biskan ku furtaa markastaba diintu kuwaana tukada ayagu laakiin munaafiqiin oo yiraahdeen cabsaraan waxaan ka fadhiisinaynaa lixda dhaqaaqda lixda stan samaysa lixda dhuuxasda anigu ma garanayaba waa full of nonsense dadka mala sixirkii dadka wax kale isku ma haysanaa daba Soomaali waxaan isku haysanaa waxay samaysteen asnaam bay samaysteen runta fiican Soomaalida maanta asnaam wax la yiraahdo casru jahligii xilligii nabi Ibrahim waatii uu asnaamta ka burburinayay dadkoodii maanta waxa uu asnaama raggii maadharada ee wax dilay hadduu yahay Muuse Shaani hadduu yahay Maxamed Kaahin hadduu yahay Salmaan Gaal hadduu yahay Silaayo waxay u haystaan runbaan sheegay rasuulay roo soo daahiray marka mimersin karaysin war nimankani Soomaaliya waa raggii burburiyay war nimankani iyaga kaligood shaqaysta war nimankani horaana hal abuurku uga gabiyo waa kii ninkii la oran jiray Allahu musta'an winaga hooseeyaa imka uu dhintay ninkii la oran jiray Maxamed Xaashi Damac Gaariye wuxuu markaad hebel duqaysaa reer hebel damqanaya hooyaday baa soo caayay sinjiga la caayay isaaqnimada horaan idinku sheegay xitaa haddii shir jira in la qaban karo qabiilka aniga laga saari karo cabdisaanaha waa laga saari laakiin sidee Allah raxmaanka ah oo jecelna shucuub oo qabiilada taarifu anu qabiil ma aaminsan tolkayguna waa Soomaali tolnimadana iyagu anigu tol wax la yiraahdo tol wuxuu tira garanaa calanka buluuga baan garanayaa Soomaalina burburtay baan ogahay marka waxaas oo dhan kun jeer oran ku war habeenkii iyo maalintii Facebook-gayga waxa loo soo ataagi jiray password kala soo jiray ka bedel more than 40 times waan yaab jiran jawaamu babangba laga tirsanayaba haba qaataan wixii ba la isla soo dhaaf safiiro waxa loo kaashaday qaar Ingiriiska ku asaasay Mareykan Ingiriiska iyo Mareykan iyo waxba isu kaashaday dawladda been abay gaafufay laakiin wallahi kuwada la xiraya kamana harayo waan ku daba jira Faransiiskana waa kaga adkaanay waxa la sameeyay video waan soo dhigay oo run baan idin sheegay ninkii la oran jiray Sheekh Xasan Daahi ninka reer Boorani waayo nimanka xanuunsanaya Maxamed Xaashi cilmi gaari Maxamed Xaashi cilmi ninka la yiraahdo Muuse Shaani Maxamed Kaahin Silaayo Salmaan Gaal maafiyada Hargeysa ay satay aftuubtay ciyaalka waxay ku shubaan wixii iyaga lagu sameeyay way qariyaan wax iyagu dadku sameeyeen tusaalaha Boorama waxay ka geysteen way qarinayaan dadka reer awdal iyo Boorama taado war 1991 kii waabay raadkii baba qoyanba Muuse Shaani soo kii dadkan xasuuqa u geystay xagee lagu qoraya wala baabinaya wala dambabasaya okay meesha la yiraahdo sawnagan imika tusaalaha markaad ku tahay war sool iyo sanaag milihin nimankan dhul baantay warsinki Soomaaliya inta lagu haystaa waa intaas meesh ilaa caynabay deganaan jireen beer bay deganaayeen dhulkan inagu leeyahay ilaahay baa ku abuuray meeshan ay deganaan imika dhulkoodii baa lagu haystaa oo inagana maxaareen ku haysan Somaliland tani waxna Ingiriis baa meeshan u bixiyay inagu ma inaanu bixin okay waagi Ingiriiskii laftigiisii dee daraawish baan way la dagaalamayeen oo mabay taabacsaneen ba hadda ugu taabacsaneen maalin dood baan ku jiray waxaan dee walaal oday daayir socdaal yiraahdo waa maasanta markuu yiraahdo waa la fooriyo qalbigu taariikhdooda waxay ka soo waa asxaabul kaafi hurdeen ma garanaysaane quraanka lagu sheegay taariikhdooda waxay ka soo bilaabantaa ilaa way hurdeen intay hurdeen waxba warmahayno asxaabul kaafi inta waxba ma ogin kuwan taariikhdooda waxay ka soo bilaamaysaa 1990 kiiba Somaliland lagu dhawaaqay Somaliland ay bixiyay dadku kuma sheegayaan haddaad ku taada Ingiriisku ma isaga ina abuuray kuma sheegi karayaan waa kaliya waxay la soo taagin wallahi Somaliland baa la soo weerar oo lagu khalday dee Somaliland dhul ballaaran oo dad kala degan oo fikirkan ba qabin oo golaadada khaatuma degan Maakhir State baa degan Awdal State baa degan ma ogola kal shaala wixii laga geysanayay ma ogolaanayaan oo kal shaala wixii dhibaatada ka geysteen waxay ka dhigayaan barkumataal toodiina way u caday haddana mid ku taado la doodin okay war bal kal shaalabaha inoo dambeeyaba iyo Boorama war ina godana dadku laayay ilan qabiil baa la soo taagan sinay ina godanihii al-shadaadinta dadkii uu laayay maan inagana la xisaabinay ilaa ina godana inagu ahay ina godanahan dadkan laayay way dafirayaan oo lafta tagay ka dhiibeen waa dafiraad way kula dafirayaan marka walaale Facebook maxaa ka sheegaysaan hadday diliba karayaan oo ay wax igu sameyn karayaan ninba waxa laga hayaa ninba wuxuu yiri hebel baa ku caayay
imkaan waxaan caaye jawaasiistan waliba wallahi hayb gaar oo inka toos aan isugu soo muruxsanay waaba tiyo la xaqalatay buu dhasha Muuse Shaani iyo aahuno iyo bujidi oo koranaya aahuno Muuse Shaani baa madaxweyne noqday hadama maca silaanka soo horjeeday iyo Salmaan Gaali uma muuqanayso maxay la jawaasiistu bay ku soo fasaxeen halkan aan wada joognaa wallahi kuwiina la ka soo xiray anuguna halkaasaan waliga ka hadlaya wax ma leeyahay ma sameyn kartaa nin kastoo qabiileena aniga ka qolaad dawcun libaaxu dabadiisa ka ciyaar wala mawduuc kale ku jira laakiin dadkan ay weydiinayaan wala is weydiinayaan cabsaan jirta maxaa yaray nabad iyo nolol 8 February ayaan ku jirnay maalin guul baan ku jirnay waxaas oo jawaasiis baan sameeyay kuwii koonfurtana ku daray ee Mooryaanta waayo Mooryaanta iyo dhasha xabashida iyo bahda Muuse Shaani maanta way midaysan waxay u midaysan yihiin dhasha Muuse Shaani iyagu mabda'oodu waxa weeyaan mabda maxaraysan kuwan Mooryaantana waa nacsiyo oo iyagu waa full of nonsense kaba si doqonsan doqontu had iyo jeer damiirkeedu ma shaqeeyo kuwana iyaga daba socdaan waxaan ogahay ninkii la oran jiray Shadaan Ususay inay madaxtooyada macag soo siinayaan adiga waxaan ku lahaa niyow ninkan oo bareeray Shadaan Ususay run baan idin sheegay inuu nimanka reer waqooyiga macal nagu dara dhika la Cabdi Fataax Boodri ninka la yiraahdo Ibrahim aniga war anigu kuwa ma qaban karayo kuwa niyow laakiin am sida okay walma inuu munaafiq Soomaaliland ku soo taageeraya mar maxaa ka galay kuwan maafiyada ay halkan jooga maxaa adiga ku suray wax suray garan maysid wuxuu kanaga rabo ma garan karaysid waa bilaa damiir waxay gabigooda iyana saacadu kaga fadhiistay farmaajo iyo khayr adan anagu qabiilkii waan ka soo boodnay xabsidii qabiilka waxba naga ma galin madaxweyne farmaajo ha noolaado ra'iisul wasaare khayr ha noolaado guul iyo gobonimo Soomaaliyana waxba ma taraysaan shalayba maxasan sheekh maxamuud ma la shaqeystay sheekh Shariif ma la shaqeystay ma Cabdi Qaasim la shaqeystay وهالكاسات نيعدا soo guraysa oo aad oranaysa niyow dawladnimada ma ya halkan iyo halkan war way dadaaliyaan caawan 30 qodob markii idin soo dhigay marka Soomaali war nimankan anagoon sayna ma doonayaan inuu qof bahallaba waxaan aniga iyo Ibrahim inta badan ka hadalnaa waxa weeyaan khaladaadkooda iyo beentooda iyo dadka ay maskaxda ka qabsanayaan iyo dadka ay beenta ku shubayaan beentiba war waa been dabeetana waxa lagu soo qaadayaa حق إيدا لقى سوكري حق أدير بلقى سوكري حق قبر بلقى سوكري حق مده برودانتي بلقى سوكري حق تك هذيك أبغى فوكس كيدا ما بنين آية بيني لكن يجا ناي كردنا واي يجو قف بعابدين هذا كتاله ورنيمان كان محل كتران محل قبطان وابا فشله ما أنت نوع كونور هي ربي سكوت الرعينو كون شجانتا قيب ولا سكش قسمية وقيب تنلو إنك سوتش يدو iyagu maanta wuxuu moogaa waa siiro maxamed xaasho waa la dagaalamaya kii madaxtooyada mar ahaan jiray wasiirka madaxtooyada wallahi waliba mar program soo diyaarin doona mar baan hoos ugu dhaadhici doona waayo ciyaalkooda yar iyo munaafiqiintooda waanu kala hadhibi weynayba anigoo Soomaalnimo ka hadlaya oo qadiyada Soomaaliyeed ka hadlaya oo ilaa Saleemaan oo raaskayga iyo Siinaan oo raaskayga iyo Maxamed Kaahin oo adeerkaya ka soo horjeeda baa reer qura isfurmayba gabigeygiiba saa waxa la kiliyon joogay kii Ingiriis joogay kii kulama garanaysan karaan laakiin waxay yaqaanaan dagaal hoosaad dagaal xun oo cidiyo ku dagaalanay yaqaan dagaal kale galbeed waranagu waan hadlaa soo hadla anu halkaasaan ka hadlayaa Muusana waa siiro horumarna ma keeni karo waana munaafiq kadaab waana gacan ku dhiigay intaas oo dhanba weeyaan waana loo khaldan waana dulmi inaga maanta lagu dhacay taas waa taa aniga hay sheegina Cali Guri iyo odageere maxamed xaashi cilmi iyo waxan waa isku hay ma ciyaalkana soo diraysan mabaka xitaa waxay oran jireen Soomaalidu isaaq wax ku maamaan jireen isaaq laba ka xeeran waxaan soo caayo dhan statistics baan ku sameeyay wada Muuse iyo xaafadiisaba wariye isaaqi kala bay samaysanaba balna casrimada inta leh radio wal cadaalad ilaahay baan ku dhashay taageera ninka waa geesi la yiraahdo liibaan jawaasiistaas isagana saystaanba ana horta waa naga soo boodo gidaarkiba waa naga soo boodo de Soomaalinimadeeda iyo nabad iyo nolol baan taageera laakiin ma aragtay rag iyo dumar ahuna sadagaal baa lagu والله هنا وينو مركل لكن عاو كان وحن قال لي قدبدن بان قال لي ان شاء الله تعالى وانا كتحضير دونا iyagana waa laga soo xiri doona meelaha ay soo xireen oo Facebook-gana kama hari doono insha Allah ta'ala dhimna ma laha Facebook-gana iyagu waxaan ku weyn war aniga dad bay daawanayba meela kala codkii ku gaadha YouTube-yada qaadanay mar dhow hadii aniga 20 qof xitaa daawanayo view-gu daawanayo lacag iyo waxa shaqadeeda ma hadaa doontaan dadka deynta wanaagsan halkaaga daawanaya waa soo dhawaada kuwa xunay caytamaya hayska caytamaan
aniga qof daawaday qof iga soo halkan live share buu soo galay waxa doesn't make sense for me aniga macna ii sameynayso aniga waxa macna ii sameynaysa inaan beentiina banaanka soo dhigo bal ilaahay baan kugu dhaashay waa sagaashan jir odaga maxaan haashi cilmi waa ninkii lahaa maalin dhaweyt ilaa aakhiro anagu war aniga daadar iiga ban maysaan maxamed haashi cilmiyow qabyaaladaysta number 1 baad ma markii imika Muuse Shaani meesha qabsaday baad muwaadin dhaba noqotay mid odayro professor la yiraahdo Cabdisalaam uu iska wataa oo isaguna waa bahal nacas oo ku guurayaan dabaday isagana waa iska soo raacayaan waa dameeradaan raac waxba ma kala ogaba kaasuna waa munaafiq kuba bal xitaa miyaad aragteen kuwan baan la hadlayaa Hargeysay wax allaale wixii qeyrin jiray hadduu haatuflay hadduu cali guriye hadduu ciyaalkii raay la bixi jiray Allahu musta'an bal reer dhan waan xishoonaynin batay miyaad aragteen hadduu yahay kan yar yiraahdo magaca abi bal xitaa caawa soo qaadan doonaa channel magaca abtigi baa loolan jiray abtigi isagoo in ayaa la yiraahdo bal isaga laftigiisa channel oo oogahan uu sheegaya abtibu ahaa ma channel waxa ku soo celiyay ma qadshirayaan wartay dhimaantii saac musaatin maaliga isaaqu adeer oday iyo awga Allah ha u naxariisto yaan ismi loolan jiray dadka qaar baa qoreen qabiilka adeer waxba dunida kama ogin ciyaal yar meelahan iyagu jawaasiiso maalin oo laf taageero oo maalin kale ka soo horjeesto maalin dawladda taageero iyagu waxbaba ma ogaba adeer qoorna ka shina waxaan u saysan ma fahmi karaysan Cabdisalaam baa qabiil caayay qabiil buu soo qabiil dhan baan haystaba oo ma daba socdaba maxaana daba dhigaada qabiilka anagu qarannimo ku hadalnaa Soomaalinimo dawladeedana waan taageero marka ina yaro fiyu raadinaya hal lagu daawadayo wax minaga isba gaadhiba karana aad u kaaso maala yaani baad adeer nabadna gaadhi karaysan noomana iman karaysan nimankana wallahi muxuu yiri saan carab afku wuxuu la xoogay magliga xawda ka jira hadal baanu kaga adkaanay been bay halka soo shubaan anagu rumeenu ka dabageynay odayaro Allah ha u naxariistay awoogiya Ibrahim Ismaaciil Maxamed Faarax Sameeni oo ayidii hooyay walaalahay bari waxa dhacday magaalada Cuudan la yiraahdo buu hooday ka shaqeysan qaadko tarabaanki ayuu qaadkii warno reer Faarax Sameeni waana ilma xayawaano haddaad wallahi qabiilkiina soo iga hadweydaan awal hore ayaa dhacdooyin la dhaxmar reer daahir baan marka anu qabiilkayga ilaahay baa iga dhigay Soomaali dhawaan Soomaalimana wanaagsan Faarax Maxamed Nuur Fadal awoogiiba wallahi haday diin weydaan wixii idin mariyeen waa garanaysa Maxamed kaahina shaqo wuxuu akiid ku raayay saaq dhadig anna waan soo wadaa gabaygi way uu istiin laanayba oo idinkiiba ma aan halkan ka fikirey waan ka beeraa anigu waxaan oo dhan ma kala jeceliba laakiin haday iga hadweydaan anu halkaasan banaankan soo dhigaya waxba tii awoogi mid kale aan ku sii daraya way uu istiin laanayba odayar baa wuxuu yiri marka Allahu musta'an yaa ismid qaadu geeyo Cuudle tabadan niman guul wadayaal loorin jiray dawladda Maxamed Saad Barre askar bay lahayn jirtay guul wadayaal loorin jiray qaadkii bay ka qaadeen kadibna waxay dhaan waali Ibrahim Ismaaciil yaa ismido qaadkaaga guul wadayaal baa qaaday nimanka marka qaad ka qaadayana wuxuu og yahay oo qaad ka dhacay magaalada Cuudle inay isku wada reer baa haayeen oo hay quray waa ogeeyo waaninkii gardaadi waa hooyadii abtigeeduma soo wuxuu war yaare nimay haw sama tarbar war guul wadayaal iyo alalag lahaynine nimay haw sama tarbar war ama xoolahaygii idinku dhaco qaatay ama xoolahaygii keen imkaanu waxaan leeyahay war aniga Soomaaliland hay ugu soo gabanina qadiyadana hay ugu soo gabanina bahdan iyo dhashan Muuse Shaaniyo hay quraatiina aniga social media tay soo gashaan rag iyo dumarba hayga soo daba niicleynina inagu isfahmayna dadka kala khaldan aniga ama ina yaro xayawaan hay soo diran ay mid yaro waxan ciyaalka korooga socdo aad baan salaamaya ku soo dhawaada daba qodobadii iyo guulaha ay dawladdu gaadhay sanadkan inoona shargaray bilaa calaykum waan ilman niclaal oo dhan baa halkan igu jiray horta qodobka koowaad gabre oo laga masaafuriyay dalka waa qodobka koowaad meel ku qorta waa muddada sanadka 2017 guulihii gaadhay xukuumadda gabre oo laga masaafuriyay dalka safaaradda Itoobiya oo laga raray madaxtooyada waa laba safaaradda Djibouti oo laga raray madaxtooyada siyaasadda carabta oo guul laga gaadhay taasuna waa guulaysta dawladdan ay ku guulaystay xukuumadda nabad iyo nolol dhaqaalaha dekada iyo madaarada oo boqolkiiba boqol kordhay 27 sano kadib madaarka aadan cadde oo ay habeenkii falaydada iyo diyaaraduhu ka duulayaan sidoo kale diyaaradihii Muqdisho ka duuli jiray oo jeer ku siinaysan jiray oo direct Muqdisho uga duulayo Nairobi ka degaya sidoo kale
Somali Airlines oo la soo celinay ma sha Allah taasuna waa qodob waxa kale oo iyaduna guula 23 iskuul oo bilaash laga dhigay oo Muqdisho ku yaal oo maanta subaxdii ay u jarmaadayaan dhalinyarada iyo macallimiintoodii mushaharkii iyagana si toos ah loo siinayo dilalkii qorshaysnaa ee xildhibaanada loo geysan jiray oo la cirib tiray intii xukuumadani maanta ay talada haysay nabad iyo nolol dilalkii qorshaysnaa ee xildhibaanada loo geysan jiray oo la cirib tiray taasuna waa guulaha dawladda soo ay waxbaan lagu haystay waxa lagu haystay waxay xukuumadda nabad iyo nolol taageeradeeda iyo ka soo horjeesiga qadiyada la yiraahdo Soomaaliland ka go'an waa labada qodob dadka waxaan isku haysanaa wax kale isku haysano anuguna kulli difaacigu ma yara anuguba marka qaar beenahoodan banaanka soo dhigay okay khilaafaadkii madaxda sare ee maxay ah hadii jeer waxaan arki jirnay xukuumadii ka horreeyay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha baarlamaanka madaxda sare oo haysato isku marno khilaafaadkii Allahu musta'an madaxda sare oo aan wali labada hoggaan laga arkay labada hoggaan ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aan laga arkay taasuna waxa weeyaan waa guul inoo soo hoytay maxaabiista oo marka la isku daro ilaa 400 gaadhay oo gobol kasta Soomaaliyeed ka soo jeeda oo la soo daayay dhulkii waxa geeba laga soo daayay jijiga laga soo daayay halkan ay maalin kasta oo xaj ka waadaan nimankan Hargeysa iyo Puntland iyo waxaan sheegta maxaabiistii oo 400 gaadhaysa tiradooda marka la isku daro oo iyadana la soo daayay intii xukuumadda nabad iyo nolol sanadka ahayd ay jirtay lagana soo daayay dalalka Ethiopia Seychelles jasiiradeeda ku taala Indian Ocean-ka sidoo kale India musuqmaasuqi oo la yiri la xisaabtan dab ah oo la sameeyay oo laga sameeyay wasaaradaha dalka iyo waxqabadkooda oo ay soo bandhigeen taasuna waa idinku qodobada la ku qorto maamulkii hawada Soomaaliya oo lagu soo celiyay gacanta ummadda Soomaaliyeed iyaduna waa ilaalada madaxweynaha oo laga wareejiyay Amazon laguna wareejiyay ciidamada Soomaaliya waa ilaalada madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo iyaduna guula awal hore madaxweynahankii ka horreeyay madaxweynayaashii hore waxa ilaalin jirtay ilaalo ka socota ciidamada nabad sugidda u jooga dalkeena Soomaaliya ee Amazon oo laga wareejiyo haddana lagu wareejiyay ciidamada Soomaaliya awoodda oo lagu soo celiyay shacabka in ka badan 15,000 oo dhalinyaro oo shaqo abuuris loogu sameeyay gobolka Banaadir 5,000 in ka badan 5,000 oo dhalinyaro ma 15,000 sorry 5,000 oo dhalinyaro oo shaqo abuuris looga sameeyay gobolka Banaadir wadarka sanax taaribood habeenkii sidoo shaqeynaya ma sha Allah cadaankii iyo maalintii dhowtaa boqor cawaale qaadiid ninka la yiraahdo Allah karaameeyo uu ka soo duubayo wax wadarkiisa macalla cadaanka sala soo dhexmarayay iyo habeenkii oo diyaaraduhu ka duulay markii ugu horeysay oo shirarka wasiirada lagu qabtay magaalada Kismaayo shirarka wasiirada oo magaalada lagu qabtay Kismaayo sidoo kale ururkii xajirka ahaa ayaa al-shabaab iyo al-shabaab waa guul xukuumaddan soo hoysay oo la soo gacan galiyay ninkii la oran jiray Abu Mukhtar Abu Mansour Rob taabudada waa xukuumaddan ay keentay mushaharka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada oo si joogto ah loo bixiyo iyaduna waa guul qaraxidii faraha badnaa Muqdisho aan lagu arkin waa guul waa indha caafimaadka qaba ma sha Allah iyaduna way arkeen ansixinta sharciga isgaarsiinta oo ay xukuumaddan ku talaabsatay waa guul samaynta ciidamada xasilinta caasimada oo aan hore u jiri jirin ciidamadan aan hore u jiri jirin ciidamada loogu yeero ciidamada xasilinta caasimada wala dadka la dilay Allah u naxariisto dadka la dilay daal shaadin baa dishay tabcan qof baalka wuxuu soo qorayaa intii la dilay oo rabo la dilay jiray ummadda Soomaaliyeed laakiin iminka way naga yaraatay taasuna anagu waan ku xunay wixii dhintay Allah raxmaanka janna firdawsaagi ee gacanta ka xaq daran dishay militariga faraha badnaa caasimada laga saaray laguna xariiq lana geeyay xiriyahoodii loona sameeyay xirooyin gaar diyaar garow dagaal oo ka dhan ah cadawga Soomaaliyeed oo gabagaba taasuna waa guul Amazon oo idab qaatay joojisana xasuuqa shacabka Soomaaliyeed Amazon oo bedeshay awal hore waxaan arki jirnay Amazon oo dadka iska laysan taasuna waa la xisaabtanka shirkadaha degan xirada xalane iyo cashuur ka qaadistooda taasuna waa guulay dawladda soo hoysay la xisaabtanka shirkadaha degan xirada xalane iyo cashuur ka qaadistooda saxiixa galitaanka heshiisyo cusub oo dalka qadar la galay si wadooyinka dalka iyo hay'adaha dawladda u dhisan ودبعا iyadana heshiis la galay dawladda qadar
duulimaadadii Nairobi oo toos u bilowday lana joojiyay rafaadkii rakaabka Soomaaliyeed lagu marsin jiray Wajeer halka horena waan idin ka sheegay taasuna waa shaqaalaha dawladda oo aan wax dalku gala laga rabin la weydiin doono wadanka Kenya si sharafna u gali doona dalka Kenya iyagoo baasaboorka diblomaasiga ku gali doona waa guulay dawladda soo hesay dabcan socdaaladii nabadda ee madaxweynuhu sameeyay socdaal nabadeed oo geesinimo leh oo madaxweynuhu ku tagay gobolada qaar iyo heshiisyo muhiim ah oo la gaadhay sida ahlu sunna iyo galmudug taasuna waa guul dawladda soo hesay xukuumadda nabad iyo nolol muddada sanadka ay jirtay socdaalkaas oo badnaa safar dhulka iyadoo aysan amisom shaqo ku lahayn raacina waftiga madaxweynaha sababtoo ah geesiyadii Soomaaliyeed oo kaliya baa ku filnaa difaaca madaxweynahooda iyagoo waliba ka yaraa kunnin ma sha Allah waxa soo dhan waa guuliyo gobonimo xukuumadda soo hoyatay waliba waxa sanadkan sidoo madaxweynuhu ka dhawaajiyay sanadka horta qorshayaashii baa la dejinay laakiin imika waxa la sameeyaa wax luqadda qalaadna lagu yiraahdo implementation hirgelintii qorshayaashii la soo dejiyay oo dhan hirgelintoodii hasal fudaanina Soomaaliyeed waa la doogiyay yaa la dacaron guuliyo gobonimo xukuumadda nabad iyo nolol dadka horumarka nacab iyaga u taala way guuleysanaysaa anaguna waan guuleysananaa midnimo qaran way guuleysanaysaa bulshada Soomaaliyeed wanaagga jecelna way guuleysanayaan guuliyo gobonimo ma sha Allah wa axsanaan gentleman insha Allah ta'ala halkan aad igala socon doontaan wixii imika in mudaaba hadii Ilaahay ka dhigo page-na waa noo sameyn doonaa kuwaas ay ku lifiyaan waa wal raba page samaysay YouTube iyo dhaqaale iyo waxa sugumay jirin laakiin hadda wixii ka dambeeya aniguna kulli waan taxadiriya waayo waad arkaysaan jawaasiistii Soomaaliyeed baa nagu farabatay jawaasiistana meel bay naga soo jeesanaa share gareeya daaqadaha uga tuura ilmo bukaan socod oo dhan insha Allah ta'ala waa guuliyo gobonimo hawshana ma ka fadhiisanayno dawladdeena waanu barbar taaganahay waana la guuleysanayaa afarta sanana insha Allah ta'ala dalka wax muuqda raad muuqda ay kaga tagayaan waana loogu celin doonaa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo geesiyada Soomaaliyeed iyo dadka wanaagsan ee wanaagga jecel intaba aad iyo ayaan idin salaamayaa noolaada meelaad joogtaanba jawaasiistana inaga ma adkaan doonaan hadii Ilaahay ka dhigo kanna anigoon baa dabcan waa asxaabtayda insha Allah ta'ala igu soo wareejisay وبهذا من نوع قرن كميدا نولادا فيسبوك رو لقى حرية waxa ku mashquulsan anagu waxaan ku mashquulsanahay kuwa Soomaaliya dhibaatada ku hayeen toos ugu qoon horumarkana inaan taageero una duceyno Soomaaliya hamidoodo hay saraacdo jawaasiistuna nooma gaban doonaan in yar oo meelaha ka qeyliyay iyo kooxdan waliba awaan ka sheegaya hadaan cabsanahay anigu journalist mi laakiin wadaniyiin baan hadaan nahay midnimo qaran waxa kale oo iyaguna dagaalka hoosta kaga jira niman wax ku cuna waxa la yiraahdo journalist iyo xanuun waa ka cadfaac boodari ma ogtahay daraawish halkii koofi lagu dilay lagu duugay maanta inay gabay ku duubeen degmadana roogan dawlad libaaxu dibadda iska ciyay waxa jira walaalayaal jawaasiis fara badan oo isku sheega saxafi xitaa laakiin madaxweynaha maanta doorisanaya muu ahayn wax caadi ah mid xasan cadal la yiraahdo noocaasna waxay ka yaabeen midnimo qaran war midnimo qaran tan dadku dhageysanayaan wariyaal ma aha war anaga wariye kastaba ma dhageysanaba wariyaalaha maranaya iyo TV ruuxna u shaqeeya jawaasiis oo dhaqaale ku raadsada anaga wada dhaqaalana ma qaadan ummadda Soomaaliyeena 7 ka sanadood wax mucaarad u wada iyo qayla iyo buuq we are so tired when ka tahay dawladdan barbar taaganahay nabad iyo nolol iyagaanu taageernaa hadalkiina nama karo ma dhageysano ma iyaga la dhalateen كرتسيس بردين إنسان دلائعين أنا وياك أنا دلني نبضي أنا ربنا صنع الله يذكر عميه الله يشرفه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.